banaag xun baan arkayo beryahan banaag xun baan arkayo noodii samaynaysa noodiis waxaa just iidha calaashaan waxay moodaysaa dadka waxay moodaysaa ninkeeda tooyga ah ay soo dhaabgaraysay waxay ku leedahay dadka waa tooy waa kan iska soo qaata arba waxa way calow wax ka faa'iidaysaan waa waxooduba waa business way laaf wanis iyo jacayl iyo nolol iyo family ma aha waxooda oo dhaniba Soomaali sideeda banaanba waxooda oo dhani waa business laugh Somali is not a laughing family. Somali is not a laughing family. It's their own business, just a business, human trafficking business. If they say you have a good life, you're this, you that, then they attract you. But if you're broke, you have no money, you're in trouble, they will run away from you because that's how they are. They are created that way. That's how they have been created. They will not be part of your life if you are in suffering in some sort of way. Because chasing from your homeland and Somali families chasing you from your homeland, they think you're not their family. Because one is you are not selling that dahabka ama goldiga aadna iibinaynin. Waxa waaye waxay ka dhiganayaan xoolo ayagu ay leeyihiin ama wax qashin ayagu ay ku dareen laakiin wali ay lugta ku gula jiraan wali waxay rabaan jirkaaga inay xabad u iibiyaan iska ilaaliya dadka nooca